قصة علي نبا نن آذوا اللذنها آذوا اللذن لأن لينكو وحكتك تهرددي إن مع أول با نسقان له هذا ميل كفي عنته ميل بعد كل لي جيسه نكاس ما سيحده كنين بكو سيحده دو كو سيحده دو marka lagu seexanayna ma aha waa hurdo raaxa ah waa hurdo qasaba qofku burbur baa ku dhacaya hurdadan raaxada waa tan dabiiciga ah laakiin tan qofku waa meel baa loo kaxaynaya oo burburaya uu soo toosay isagoo meereysanayo hurdadii iskala ayuu fooqiisa dabqiisa hoos u eego wuxuu arkay qolo hoos jiifta dabaq oo say u kala yaalaan iyo say u jiifaan adan malaynin tan uu yaab qoladii ayuu u yimid aad buu tamaniyay inuu mar uun sida u seexan lahaa subxaan allah waa u yimid waa niman muslimiina oo ku nasanaya fooqiisa hoostiisa oo ma aragtay dacwad iyo diin ka shaqeynay nimankii buu yimid wuxuu nimayahow kor baan idinka eegay waad seexateen dhammaantiin anna hurdaan iska lahay 10 sano ma seexan intaasoo sano ma seexan waxaan aad sidan ugu seexateen habbiga banaankaana waad jiiftaan anu waxaan ku jiraa qasrigaas intaasoo sariirood iyo intaasoo mukayaf ayaa ii baxaya haddana waan gamila idinkuna gidaarka kaabadii waad fadhaha wada saarteeno waad daadateen mar uun haddaan sidaa u seexan laha yani noloshayda raaxadeedan gaadhi lah maxaad igula talin lahaydeen waxay yidhaha annagana raac ma rabta inaad seexataa bas na soo raacna inaan dawadiisii buu ka dhex arkaay waayahay buu xageen qabanaa aduu noola socowna annaga soo xidhxidhay uu raacay waxaan sameynaa samee diintii bay kala hadleen waxbay u arrimihii bay kala hadleen khayrkii bay u sheegeen wuu islaamay wuu la lugeeyey meeluu la degay waa akhiiran uu kala dhacay waa daalay wuu lugeeyey diintii allah laga warramay shaydaankii baa ka hadhay wuu cibaadaystay wuu tukaday uu kala dhacay yani wuxuu noqday dadka ducaada ee diinta ka shaqeeya dadka ugu fiican buu ka mid noqday maalkiisii hantidiisiina wuxuu ku maalgeliyey dacwaddii iyo diintii islaamka ayuu ku horumariyay oo kaga shaqeeyay ilaahay wuxuu ku siiyey haddaad ku qanacdo cid kaa qanisan ma jirto ilaahay wuxuu ku siiyey haddaad ku qanacdo cid kaa qanisan ma jiro baahi adduunyana ma dhammaato haddii maanta meel aad ka gufaysan tahay meel bay dabayshu ka dhacaysaa aniga idin sheegay cantuuga jiilaal canba cantuun waxaa laga yaabaa markaad iminka suuqa soo qabataan eed lugaynayso ee gaari weyn oo maaragtay kala baxsan ay inan wadata ku soo agmarto inaad hoosta ka eegto tira nabiyaha nagu sayrin annagu iska lugaynana xayraankaasana waxna nala ma dhici kartaa laakiin waxaa laga yaabaa iyadu inay ku tuunsanta oo ay xanuunsanayso oo ay ku rayn lahayd inay mar uu yaro lugayso hal saac si ay u dhidido saasay ku eegaysaa adna waxaad moodaysaa inay ku huruufayso way ku eegaysaa way ku kamanaysaa waxay leedahay bal eeg inantaa soconaysa xaf xaf koonaha kale ka soo dhaadhacday sila dawaynsid xooggeeda bismi illaahi araxmaan raxiim iyaduna gaarigaasay luudinaysaa ku socota adigu iyadaad eegaysaad leedahay anaga siigay nagu kicinayaan annaguna waanu iska soconnaayo weligay gaari maanaan helin iyaguna mid waaweyn bay sitaan ها مرون هدان هيل الله يدنا وحيلان مرون هدان سدا أي أقول له وين يسو أقول له وين لا مرون هدان أقول له وين لا